kuwani waa ciidamada kamaandowsta SSC Khaatumo oo inta aysan qoraxdu dhicin u jahaysanaya dhul aad u ballaaran oo teedsan sohdinta ku meel gaarka ah. magacaygu waa wariye Cabdifataax Maxamed Cabdi waxaan fursad naadir ah ku helay inaan kamaandowsta aan kala qayb qaato hawlgalka markan waa inaan isku diyaariyaa shaqo adag. وقبل لقيه يا ديدلاينا أمر كقول ما يلا نفرج يا وحوينا شتى بشتى هيك شتى بشتى قلوبا ciidankan gaarka ah ayaa u tababaran la socodka dhaqdhaqaaqa cadawga iyo dhagar kasta oo ay soo maleegayaan taako ka mid ah soodinta ku meel gaarka ah lagama yaabo inay tallaabo soo dhigaan. ciidankanina hawlgalkoodu waa mar waliba waxayna sameynayaan horumaro lagu burburinayo dhagarta sidoo kale waxay ka taxadarayaan weerar gaadma ah. halkan dhowr saac ka hor ayay militariga SSC xoog uga saareen kamaandowsuna dhaqdhaqaaqooda dambe ayay si dhow ula soconayaan. markasta oo cadawgu jabo waxa iska caadi ah inay soo qaadaan weerar rogaad celisa taa beddelkeeda ciidamadu waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo cadawga lagula soconayo dhagar kasta oo ay maleegayaan. kani waa difaac adag oo uusan cadawgu hawaysan karin inuu ka soo tallaabo. waa dhalinyaro dhiigoodu kulul yahay dagaalka qaarkood waxay ku waayeen waalidiintooda asxaabtooda dad badan oo ay jeclaayeen iyo xitaa hantidooda. taasina waa ta ku dhiirigelinaysa dagaalka inay ku jiraan oo aysan nasan tan iyo inta cadawga hawaysanaya dhulkooda iyo dhiigooda laga cirib jirayo. waxay dagaalka ku jireen tan iyo bilowgii waxayna jirtay xilliyo ay qoriga taangiga ugu babacdhigi jireen BKM-ka balse maanta qaarkood waa commandos waana cudud ciidan oo dhan waliba iskaga filan iyagoo awood u leh inay geystaan tacadiyo ka dhan ah kuwii lagu sameeyay balse waa ay ka tanaasuleen. Ali Maxamed Diiriye taliyaha ciidamadan gaarka ah ayaa sheegay in maamulka Hargeysa iyo maleeshiyada iskarabsanaysa inaysan marnaba soo hawaysan taaka ka mid ah dhulkooda taa beddelkeedana ka warbixiyay deegaanka ay la wareegeen iyo sababta ay cadawga ugala wareegeen. boqdarkayn iyo meesha la Balli Cumar labada waxay ka soo jeedaan deegaanka SSC dawladda Maxamed Siyaad Barre xad bay lahaayeen labada beelood abareeshiyeeyay magaalo ma dhaxayn xilligii irkiyaal joogay oo 2004 bisa 5 oo deegaamada kan la isku qabtay wareegta la soo saaray in aan wax dawladda Soomaaliya ka dambeeyay aan la sameyn marka waxay lagu sameeyay labada tuulaba nooc qaldan oo loo adeegsaday bulshada halkan deganeyd ciidamo iyo awood saasayna ku dhismeen labada Balli Cumar iyo boqdarkayn labaduba waa deegaanka SSC midna maaha meelaha aan dariskan lahay bariga Burco kama soo jeedaan dhul ahaan sida ay ku dhismeen waxay ahayd si la ogaa oo lagu soo duulay oo awood ah oo technico konton gaari ka badan la dul dhigay iyadoo kale xilliga dad shacab iyo xoolo dhaqato ay degan yihiin